xafladda 18 May ayaa lagu qabtay magaalada Bayern Munich ee dalkani Jarmalka. xafladdaasi ayaa loogu dabaaldegayay 21 guuradii ka soo wareegtay maalintii Somaliland lagaga dhawaaqay magaalada Burco 18 May 1991. waxaana halkaasi khudbada aad u qiimo badan ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Hussein Mohamed Mohamed. Dr. Xoog ayaa sidoo kalena sheegay in talooyinka ay soo dhaweynayaan qurba joogta reer Somaliland ee ku dhaqan dalka dibadda. loo taabanayno iyadoo aan sheegay intaasoo wixii la qabtay runtii oo aan caawana ka sheegayn karin ayaa haddana baylaha taala iyadoo ay tahay in la qabtay loo baahan yahay weli ummadda loo baahan yahay dadka loo baahan yahay ay yihiin runtii cirkii loo kala soo jira waan ogsoonahay inaan qarsoona laakiin waxa weeye mid walba waxaan la sugaynaa maalinta maxaa ay suura gasho ee itaalkeena yeelano itaalkeena maalinta yeelano ayay la sugaynaa diyaar u tahay inay qaatay diyaar u tahay dadkeeda la tashanaysaa albaabadu way furan yihiin waxa weeye gaar ahaan waliba dadkiina dibadda oo waddankooda jecel dadkiina dibadda ku nool oo ognahay in waddankiina aad u jeceshiin meel aad joogtaanba adduunka taladoodu waxa weeye wada caafimaad qabto oo aan si gaar ah runtii usii jecel dhanka kalena Shamis Yusuf Artan oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa jirtay wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa hadallo dareenka shacabka aad u kiciyay ka soo jeedisay goobtii ay ka socotay xuska 20 guurada ka soo wareegtay maalintii Somaliland lagu dhawaaqay iyadoo sidoo kale soo jeedisay in aqoonsiga Somaliland walalaha Soomaaliyeed ay ku dhawaaqaan ilaahay ku dhaariyay noo quura waa loo haneeyaa walaalka waxay sidii baynu walaalanahay kasta yar anigoo ku daraya dee laba hooyo ka soo wada dhacay hadday safgaro waayaan guriga digada way kala rogtaan inta waxa ku daraya dadweynaha halkan isugu nimi waddankeeni waa garanaysaan dadkaynu ka nimina waa garanaysaan waxaad ku dadaashaan sidaa wax ugu baran lahaydeen sidaa wax u tari lahaydeen sidaa u gargaari gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland Maxamed Xuseen Dacsi ayaa khudbada aad u qiimo badan oo ku qornayd afka Jarmalka isaguna goobtaasi ka akhriyay taasi oo runtii uu kaga hadlayay marxaladihii kala duwan ee Somaliland soo martay hanaanka dimuqraadiyadeed ee ka hana qaaday iyo waliba madaxweynayaashii uu kala dambeeyay almost the mess registriert in der Verhältnisse werden involviert und die Cafés sind voller Menschen. Jugendliche belagern Internetshops, die eine Auswahl neuester Computerspiele anbieten. Letztes Jahr hat Somaliland seinen 4. Präsidenten gewählt, Mohamed Siayo, demokratisch gewählt. Mit modernster Technik, die dazu beigetragen hat, dass es nicht zu Fall kommt. والله سنرتي درنك بقولك aad u wanaagsan yahay waxaan aad u farsanahay honkeyga TV oo aan oran karo waxa weeyaan hadii beedkeeda leeyahay ugu meeqaam sameeyay halkan aan joogno Jarmalka telefishinada jooga waan u leeyahay wararkiisa habaysan tabintiisa horeysay sida heer caalamiya honkeyga TV ya heli karaya waa kuliyad heer waa horseed aqoon iyo kuliyad heer sare honkeyga TV ya heli karaya kusoo dhaw telefishinka caalamiga honkeyga TV ما صدقني أنا هو عريس عبد الله سليمان كلام ده شارين في Somaliland يكون دعوة وتكسر مني وحنا كسلام يا دمان جمهورية Somaliland شعب كذا يحكمون ده بقى هو الرئيس الحين جمهورية Somaliland إحنا بحد كمود وحلا هاي نقول عيد فرحة لا تقول لك كسر تيجي لا تكمل النص نقاشني حرية Somaliland ما شاء الله waxaa ka salaamaya dhamaan shacabka Somaliland waxaan ugu hambalyeynaya sanadguurada kabilaatanaad ee gulistaaga Somaliland waxaan inoo rajaynayaa sanadkiisa inaynu halkan ku kulmi doono inagoo sidan ka fiican oo ictiraafaysa ku soo dhawo telefoonka honkeyga TV dabcan ku dhaw hada waxaa dareenkaaga dabcan waraysi salaamay meesha honkeyga وري مصطفى طبعا السلاميه بشكل Somaliland mid kasto ay joogto مصطفى حاجان هارون تلفزيون عالمي هون كيبل TV Jarmalka